nabadaysa saaxiibayaal horta alxamdulillaah ilaahay ma iskale waxa si toos ah noogu dhamaaday sanadkii 2024 waxaan rajaynaynaa sanadka soo galay ee 2024 inaas ilaahay noogu dhigo mid farxadaysan anaga dhamaanteena as laga dhigo kuwa farxad la ku gudbo sida 2024 ugu soo gudbin inkastoo dadka qaarkood ay murugo ee sanadkan waxyaalo badan ayaa jiray sanadkan hadda oo soo dhaafay aan qorshaystay waxna way suurtageleen alxamdulillaah ilaahay ma iskale waxyaalo badan way suurtageleen waxna ma suurtagelin waxay soo maro murugo iyo xanuun way iska jiraan balsaasiyeesh ilaahay ma iskale wax kas ilaahay ma kula sugnaatay hadda sanadkan waxyaalo badan buu ka bixiyay saaxiibayaal waxyaalo badan buu ka bixiyay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu si fudud isla u geyn doono oo hadafadaas toos u gaari doono si aan buugas u bedelo oo ku kala qoro adinkana waa idin kor badadayga wax u qorayihiin dhamaanteen ilaahay naga dhigo ku farxad iyo wanaag iyo reereyn ay ugu bilaaban doonto 2026 sanadkan soo socda insha Allah bidinilaahi kariim inta xanuunsan ilaahay caafiyo balse hal meel aan ku dardaarmaa halka mid ku dardaarmay waxa waaye nin kasto caafimaad islee ku soo gaarsiin sanadkan 2025 soo sanadii horena soo maray fursad cusub waaye ka faa'iideysto hadii aan leed qura akhriska badiyo waxyaalo badan u xifdiyo oo adduunyada wax ka qabsado tii aakhirana waxa waaye lama horaan waaye inuu meel wanaagsan ka gaaro midada kale waxa waaye waqtigaada iska bedelin oo adiga aad isbedelin waqtiga bis uu isbedel qashwaay isbedel adiga hataa sameeyo qorshe cusub wax wanaagsan soo kordhi waaridka ka duceyso hadii sanadka hore aad hadii iska jiifo cajlo wax badan sameey saaxiibayaal oo soo duceeyno sanad cusub ayaa bilaabano hooyo sanad soo duceeyno ilaahay noo dhigo mid farxadaysan Soomaaliyeedna mid isku toosta ay silay ka dhigo marka muuqaalkeen inta soo ku yahay assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh